madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in shacabka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiintoodaba ay walaac la qaybsanayaan dowladda Djibouti kaasoo ahaa walaacii dowladda Djibouti ay sheegtay inay ka qabto safarkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay wadanka Eritrea ee uu kaga dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in laga qaado cunaqabataynta hubka wadanka Eritrea. Waare ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladda Soomaaliya ay dib u fiiriso xiriirka walaaltinimo ee wada dhalasho ee ka dhaxeeya Djibouti iyo Soomaaliya. ka warqabtaan dareenka ka soo yeeray madaxda Djibouti oo walaalaheena oo runtii cabsi ka muujiyay eed ka muujiyay sida ay wax u socdaan. annagu reer Hirshabeelle haddaan nahay waxaan leenahay waa idila damqanaynaa walaalaheen Djibouti garabkiinaan nahay wixii aad noo gasheenaan ognahay إلى الدنيا ذا لقد دوبان ولالنا هاي وأندرسنا هاي إن شاء الله تعالى اسبدل كستاهو هل مر موضة هرقلو وحنرجينا إن ولا لهن جبوتنا اسبدل كاس وحي كقلي دولة دينو كقن عصو شعب كينونا وحي ديارو يهين إني كأبال عليان محوها كقرابان ولا لهن وحي أي نقشتان iyo walaaltinimada naga dhaxaysa run ahaantii isbedelku waa isbedel wanaagsan guud ahaantiisa laakiin taariikhda in intii dib loo raaco darsiyadii laga bartay hore loogu socdo ayaa fiican waxaan rajaynaynaa in arrimahaas ay saas ku dhamaad doonaan. hadalkan ayuu madaxweyne Waare ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee magaalada Beledweyne lagu qabtay. Aadan Cabdi Axmed.